gabadha ruqayya la yiraahdo Hiblaayo ayaa ii soo gashay mar allaala markay iridda iga soo gashay ay sida ay eegtay indheheeda waxa toosh moodo oo shuuca wata ayaa indheheeda iga soo booday markaas miir ugu dambeysay waxaan soo miirsaday saddex ciyaalna inay iyagu meyd ah ay yihiin injineerkii ganjeelka sameeyay ayaa wuxuu la yaabay qaabka quruxda badan uu sameeyay albaabka waa isla isagu masla yaabaya abaar markuu amusnaabi wuxuu ku yiri ninkii guriga lahaa indhaha iyo gantaal ba ka soo baxay buu yiri waxba ka soo baxaye ma adaan kugu dhuftaa mise furaha aad gacanta ku sidaan ku dhuftaa markaasuu ninkii guriga lahaa wuxuu yiri mee furaha ku dhufo saas indhaha ugu eegay furihiisa ka tuurada ahaa waa kala booday dadka indhaha wax ku dila macnaha ay u suurto galayso haday kugu eegaan inay kugu dili karaan dadka noocaas oo kale in xabsi lagu ururiyo oo wax lagu siiyo umada laga ilaaliyo in badan ma oga waxyaabaha iyo dhibaatada ay leedahay ma oga inay tahay ishu dilaa qarsoon ishu waa dilaa qarsoon waa isneebar kugu dhacaya oo aanad garanayn meel uu kaaga imanayo waxaan ka hadli doonaa ishu waxay tahay noocyada u qaybsanto sida la isaga ilaalin karo hadayba kugu dhacdo sida la isaga cilaajin karo qofku isaga daweyn karo cudurrada waxa loo qaybiyaa marka la soo ururiyo dadka ku dhaca inay qaab cudwi ugu dhacaan ama qaab nafsi ugu dhacaan ama qaab ruuxi inay ugu yimaadaan cudwi waxa laga yaabaa in xanuunka kugu dhacay jirkaaga ku dhaco meel ka mid ah jirkaaga inuu qabsado aad u xanuunsato aad u bukooto ama qayb nafsi ah oo nafsiyan baad isaga bugto oo dadka dhaxbaxdo oo cid la istaagto xanuun kaama muuqdo haddana waxaad qabtaa inaad xanuunsanayso waan bukaa waan liitaa baad leedahay in xanuunkani kuugu imanayo si ruuxi ah sida sixirka jinka isha iyo wixii la mid ah culimada ka hadla xanuunada noocaas oo kale ah way isku khilaafeen xanuunkan ishu dadka nafsiyan buu ugu dhacaa mise wuxuu ka yimaadaa qaabkii ahaa al-amraad ar-ruuhiyya ishu waxa la yiraahdaa waa isaaba ama waa sihaam markay dhacayso sida leebkay u dhacdaa sida leebka ay qofka u dhacdaa qofka markay ka soo baxayso iyada shuuca ay qofka labadiisa indhood ka soo boodaa waxa markay soo boodo waxa la wareega oo kaxeeyo qaada qaraanka jinka kula socda kaasa xambaaraya dabadeedna markaas qofkii ay ku dhacaysa waxaan maqlaysaa hebel baa dhacay kaalay quraan baa lagu akhriyaa qofku waa dagaalamaya waa qaylinaya hebel baan hayb leeyahay walaalayaal culimada ka hadlay isha aadka wax uga qoray waxa kamid ah الحافظ ابن الحجر العسقلاني في فتح الباري وحكاها لي العلامة ابن قيم رحمة الله عليه ولما ابن قيم بعد وحد لي الشيء النوعية دي قابب كده يشو وحي تحيب نبي عليه الصلاة والسلام يسوي إيش كحد لي وحيري العين حق بنبي إيش هو حقيقي وعذر جرة معناها بلغة هذية إيش هو عذر جروي مركل النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامي حدي قدر كلا لا ترتمي لها
هذا وقدرك أين النقان هديك على لا ترتمي لها شيء لا ترتمي لها أو شيء قاسو قدرك كديرين لها إيش كديرين لهيت إيش أكتنو وحسها لم بيننا كتح لكن عذر ترودا عذر هذا عذر كوجحني شوي وعذر هذا وجحن ويش ما أنتنا سيدا ينوجب بدنت هاي وحلا الدريم بكرمه لكن أكتنا إن عذر تهاي من نقانه وذاتك الله يلاحظه محمد المختار الشنقيطي ayaa wuxuu yiri ninba wuxuu dhisanayay guri injineer buu yeedhay markaa nin injineer ah ayuu yeedhay ganjeel buu sameeyay injineerkii ganjeelka sameeyay ayaa wuxuu la yaabay qaabka quruxda badan la uu sameeyay albaabka waa isla isagu masla yaabaya عبار مركو أمسنابو حكوي نكي يقول لها عندها يجنتال بكسر بحيه بيقول وحبا كسر بحيه ما أذان كقول دفتة مسافرها جعنت كوسدان كقول دفتة مركاسو نكي يقول له وحيدي ما فرها كقول دفع ساس من ده هو أجي فريه سكتورة ده وكل بودي وابا تشابه إيشو dadka qaar waxay awood u leeyihiin inay ku cawriyi karaan indhahooda inay kugu dili karaan bay awood u leeyihiin dadka qaarna iyagoo aan uma jeedin ba inay ku cawriyaan ama ay wax ku yeelaan ayay ishu ka dhacdaa labada qaba ishu dhacdaa dad iyagoo awood ba u leh oo qumay ah ويدعدا ولا ليال wadaad reer Kuwaiti ah oo wadaadadan ku shaqeysta ah ilaajiyada ayaa gurigiisa guri ku xigay inan baad deganayd inantaas carruur haysato ma dhasho laakiin wixii dhalay nacabta wadaadka gurigiisa ay timaada maalmaha kamid ah ay guriga soo gashay gabadhii guriga joogtaa guriga ka furtay albaabkii gabadhii baa duushay marka gabadhii hore u socotay carruurtii bay eegtay saddex waa israacay carruurtii oo dhintay wadaadkii baa wuxuu wareystay gabadhii wuxuu ku yiri sida wuxuu dhaceen gabadha Ruqayya la yiraahdo Hiblaayo ayaa ii soo gashay mar allaala markay ridda iga soo gashay ay sida ay eegtay indheheeda waxa toosh moodo oo shuuca wata ayaa indheheeda iga soo booday markaas miir ugu dambeysay bay tir waxaan soo miirsaday saddex ciyaalna inay iyagu meyd ah ay yihiin waxay ku cadaynaysaa ishu dhibaatada ay leedahay dadka wax awriyana ay laba u qaybsamaan kuwa iyagu haday ku qasdiyaan ba kuguba qaadayo ku dagaalamaba markaas culimadu waxay yiraahdaan dadka indhaha wax ku dila macnaha ay u suurto galayso haday kugu eegaan inay kugu dili karaan dadka noocaas oo kale ah in xabsi lagu ururiyo oo wax lagu siiyo umada laga ilaaliyo dadna qofka inuu ku cawriyo uguma talagelin waa un ka helay khalaas dabadeedna saasay ishu kugu dhacday waxaynu u noqonaynaa xilligii nabiga ishu ma dhici jirtay maalmaha kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo koox asxaabo la socota ayaa meel bay istaageen saxaabi la yiraahdo Sahl ibn Hunayf ayaa biyo qaato wuxuu damcay inuu meelkaas ku soo qubeysto ninkaas nin qurux badan buu ahaa jir ahaan iyo muuqaal ahaanba nin la yiraahdo Aamir ibn Rabi'a ayaa ka daba tagay markaasuu arkay ninkii markaa dharkiis ka bixinayo qubeysanayo oo qubeysta doonaya sida intuu u eegay wuxuu yiri war ninku qurux badana balaq waa dhacay ba Sahl inta markuu yiri ba saxaabigi duulay
nabiga loogu yeeray nabiga arrinka loo sheegay arrintii baa la yidhi yaa ku tuhmaysan baa la yidhi ninkan il baa ku dhacday yaa ku tuhmaysan ninkan waxay yiraahdeen asxaabtii Aamir ibn Rabiican ku tuhmaynaa isaga baa loo yeeray markaas nabigu wuxuu ku yidhi Aamir alaama yaqtulu ahadukum akhaah mid idinka midihi ma walaalkii buu dilayaa alla barakta buu ku yidhi warmadu ducayso tiraahdi allahumma barak allah fiik maxaad ugu oran weyday inagu qaacida kale isticmaalaa ma sha Allah banagu nahna moogta meeshan ma sha Allah ma ahe qofka marka oranayso wana tirada barak allah fiik allahumma barik wana taagu ducaysa laakiin ma sha Allah iska ilaali waad ka heshay ma sha Allah bulay ha ku oran intaas barakallahu fiik barakallahu fi malik wa fi awladik wa halum aljarrab wala liya isha waxaanu qaybinaynaa saddex mid waxa la yiraahdaa aynul qaatila lagama soo kacayada waa dilaa'iyadu lagama soo kacaba nabiga kaleey salaatu wasalaam tuulaha ishu ninkana qabrigay geysaa tuluda geelahna dherigay ku ridaa awr buuran badalkiisa awrku buurana dam awrku dhacay ka gaarsi hal baa loo gowracaya warniku xoog weyna warniku qurux badana xaq horu ka duulaya waaba meydba qabriga la geynaya kaasa waxa weeyaan isha mid kamida waxa la yiraahdaa aynul qaatila waa dilaa'iyada lagama kaco midna waxa la yiraahdaa aynul mu'addila waxba kaasi noqonaya ish dhulba kugu dhacaysa waxba kaasi noqonaya walcadu wanaagsaneed cod ku xirmaya xabeeb iyo guux iyo waxba lagu furaya dhuuntaas ka cabanaysa waxa ma aqri karo dhun xanuun baan leeyahay dhakhtar baad saa ugu waalanaysa wad qurux badnayd midabkaagiba guurayba waniki maxaa hel hebel soo kan isbedelay midabkiisii tagay overs magarat aynul mu'addila la yiraahdaa waxba kaasi noqonaya shaqadii baa lagu kari waayay wana shaqa badan ma lahaado mar Allah marka shaqadaas qab caajis baa la gelinaya shaqaba la ma ogolaba baashish amal wixii amal la oran jiray waa ka soo taagana islaantii waa isla liidanaado gogoshiiba lama tusi karaba imisa guri ku dumay qofkii waxba ka sii noqonayo aynul mu'addila la way farabadanta lama soo koobi karo ninkii quraanka akhriyi jiray quraanka ka tagaya cibaadada yaraanaysa wax walba ku kugu imanayaan aynul mu'addila la taas waxa tasaddexaadna waxa la yiraahdaa aynul mumrida la yiraahdaa isha xanuun ninkan wadna xanuun baan leh wadnaha bugta ay haya qofka xanuun buu sheeganaya mees dhaqaajin karaya dhabarkaas dhinac garbahaas oo dhan waxba saaran hurdala'aan hurda ma jirto waan soo jeedaa haddaan saada seexo waxbay qanciidinaya waxbay toosinaya ma nooliniyo qofkaas waa aynul mumrida leeyahay mumrida qofkaas waa xanuunsanaya dhakhtaruun buu ku socdaa walita isha qofku waxna waa cawri karaa waa isaguna waa cawri karaa isaguna qofku waa cawri karaa khaliifkii la oran jiray Suleymaan ibn Abdul Malik ayaa inuu khaliifkiisa sagaalaadaha mar maraynayo ayaa maalmaha kamid muraad soo qaatay soo daawada soo eega kasoo xogaa ma garanaysa kasoo yiri nabi maxamed rasuulullaahi soo diray buu ahaa muraadkiisa yaa moogta Abu Bakar khaliif buu ahaa khaliifkii koowaad buu ahaa dad badan soo tiriyay
markay isaga soo gaadhay ayaa wuxuu yiri Sulaymaan ibn Abd al-Malik wa ana maliku shaab yiri marka aniguna waxaan ahay Sulaymaan ibn Abd al-Malik waxaan ahay boqor dhalinyaro ya waqti badan haysta inta markuu yiri bilba ma sinoolaanba isaga isdilay isaga isku qaaday bilba ma basi jooginin walaalayaal waxaan uga soconnaa ishu waa cudur dilaac waa ka hadli doonaa qofku si isaga ilaalinayo iyo si u dadaali doono nin kamida dadka wax awrida lagu yaqaano ayaa maalmaha kamida isagoo meel fadhiya wuxuu maqlay ilmo yaro kaajaya ayuu kaadidiisa maqlay markaas wuxuu la yaabay kaadidan say u sanqarayso kaasuu yiri kaadidu ka hadla marka aad buu la yaabay moogta markaasaa lagu yiri wareedhe ilmahan aad hadaleysa kaajaya waa ilmahaagii baa lagu yiri kaasuu madaxa qabsaday markaasaa lagu yiri si fiican buu u kaajaya waxa ma gaadhin kaasuu weligii dib u kaaji maayo buu ilmahan isaga dhalay dib uma kaajay ilmihii kaayda ku dhigtay waa dhintay walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين إيشو وحق ووحشر معناها وي وعذر شري أوغوبا لقوليه حدي لا ترتنسين لها قدر كإيو إيشا متك هدي إيش واقفنا أي ديرين لهيد ما بديرين يسأ هدي بقى أي إيشو كديرين لهيد قدرك هذا إيشو ديرين لهيد إيدا معناها معايا توي إيشا مع هدي متك ديرين لها إيشا بديرين لهيد إيشا كهر مرة لهيد نبي وحوري وإذا استغسلتم فاغسلوا حديم إما يدقف قف العوري قف با دعي هبل با كهدلو لا غرانيو هبل waa loo tagay waxa la leeyahay ilba kaayir boodee no mayro no weysa qaado bibaaf noogu weysayso waa inuu kaasina sida ku weysaystaa biyi baa la qaadaya qofkii baa loo geynayaa maayuunka hay la cawriyay kadibna uu ku meedhanaya biidnillaahi sidaas ugu bogsanaya marka qofkan ka dhaxadlay la yaahdo oo gaar loogu tago iyadaan la ceebaynaynin isaguna waa inaanu iswaalin aanu boodboodine waa inuu ku weysa qaataa hadayba dhici weydo maxaa la yeeli habab fara badan bay culimadu taqriiriyaan ninkan waxba u sheegin baad ka baqdo xaafada keen macsuun soft u dhig marka ama tuwaal u dhig asku masaxo markuu qadeeyo farxasho tuwaalka uu isku masaxo tuwaalka biyo ku rid qofka ugu mayd soft baa la mid ah mara wixii dhay baa la mid ah hadaad heli karto aad hesho inaad biyo geliso qofka marka aad ugu qubayso wadooyin badan ayaa furan عائشة رضي الله عنها أي وحي كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل qofkii ishu ka dhacday ishu ka timi Aisha waxay leedahay waxa la amri jiray qofka ishu ka dhacday inuu weysa qaato oo marka loo yimaado walaalow inantayadii baad ka dhax qaylinaysa hadii la yiraahdo inuu weysa qaado waa inuu weysaystaa وين بيي كويسيستا أما كوكوبيستا كذب نبيي بلا سوق هذا يا قفك اللي عوري العبسين مايه وكوكوبيسنا يا بإذن الله هنا سداس أيوكوبك سنة يا ولا ليال وحيابها الله يسقي إيش اللي جهر تيكرا وحكم ده التعويذ وحلا يلاحظه إن قل عذوينك الله أخرسته وعررت الله أخري وإسلامت الله أخري وجرج الله أخري وأدو أسكو أخري ده وحد كرر يسنا يسا إيش وأنا داعي سنة وأنا وحشرة وأنا كوجي من يساء كديار جرو نبي عليه الصلاة والسلام حسن يا حسين أيوس حورن شري أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة waxaan ilaahay idinku magan gelinayaa kalimaadkiisa dhamayska tiran waxaan idinka magan gelinayaa shaydaanka iyo bahalaha iyo waxa dhibaatada badanba
ما النبي يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إن ترى هذا لقى دونية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدح شريعة إذا تكعلسه أي لقى دونية وين أذكرت لبرتع وين قولك أذكار لقوا أخريا وعررت أذكرت لقوا أخريا هديك هلا عبرت ولا عوري عررت ولا عوري قولك واكلولان إسلامت وسكولان إنسان أديك laftaada indhaha waru ma haysid dadkana bulshada iyo mujtamaca dhex joogto waru ma haysid waxa way hadii kale uu shifay cilaaj madsa ugu wareegay uu niyo dhakhtar laakiin si basiid ah ayaad isaga ilaalin kartaa waxaan oo dhan hadad raacdo hadiga nabiga kaleey salaatu wasalaam qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ayaa laga doonaya inta soo iyo faatixadaba inta iyo ducooyinka inaad akhrido ayaa laga doonaya waxyaabaha la tijaabiyay amaanu tijaabinay lagu ladnaaday waxa kamid ah nabiga waxa maqasheen inuu yiri hadii aad bariiska yar ilowdo bisinka aad ka yar ilowdo soo dib ka keeni maysid bisinki bismillaahi fi awwalihi wa aakhirihi soomaha waxa la shaydaankii dhargay inta bila bisinka ahayd dhargay hadaa tirada bismillaahi fi awwalihi wa aakhirihi waad ka mutajis wixii badabadu keenaya تجربة علماء waxay yiraahdaan qolada maxay ruqaadu waxay yiraahdaan haddaad 10 ku tufto tadbiya soo qaado bismillaahi fi awwalihi wa aakhirihi bismillaahi fi awwalihi wa aakhirihi aad ku celceliso kadibna biyo aad qaado oo aad ku sandaarsato waxa inta badan meelaha way degaan asandaarsi fiican aad ugu qaado waa tajriba waxa isagoo cala duul ah ayuu dabada soo duulaya taana hal lagu dadaalo dadka hurdalaantu hayso ee isha iyo dhibaatada ay hurdalaanta ay ku beertay arimo kale iyaguna tajriba aba jira saddex aayadood iyaguna ay ku dadaalaan aayada lillahi ma fi samaawaat al-baqara aayada 283 amana rasuul wa aayada 284 iyo aayada 285 aayada saddexda aayadood markaad habeenkii seexato waniki hurdo iska waaye haddii inta habeenkii aad ku celceliso saddexda habeen kadib insha Allah taala hurdo bad helaysaa inaba caadi ahayn انتنا الجدال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل